السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا أنت عافيماد. ما أنت وحن سمعنا يا سوب عاد وفضوط عافيمادنا له وفيتناميز سوب مركا إن شاء الله. وحيالها قدر سنة وحاكم ذا نودلز كان أو قسم يسن بريس بس عقاقة أطعم حقيقي صارن ومنت tofu, sesame oil, fish sauce iyo soy sauce. marka labadan cusbada ku jirta kaliya isticmaalaya oo cusbo ahaan labadan cusbo kale kuma dari doono insha Allah. kabsar caleen baa isticmaali doona aan ku darsan doona. halkan waxa ay saaran toon aan sliced u jaray iyo basal waa ginger aan rabo inaan sii yaryareeyo xoogaa aan sii yaryar oo waxaan u jarjari doonaa dheer sidaan oo kale ah. marka suubkaan aad u fiican yahay waa cunto aad u fiican oo ku diyaarsanayso less than 20 minutes waqti dhan kaama galaayo runtii. marka waa kan waa gingerkii wansaan yaryar u jarjaray waa sinjibiishii toon iyo basal. marka alaabtan gadaal uga darsan doonaa insha Allah. waxaan ku darsan doonaa cuntadan. marka cuntada waxaan rabaa inaan marka hore aan qaleeyo qudaartaana rabaa intaana rabaa inaan ku qaleeyo cuntada si oo flavor ay ugu yeelato insha Allah. marka instant pot kan isticmaali doona. waxaan ku soo darsanayaa hal qaado oo saliid olive oil. midaan waxa loogu talagalay in korka wax looga darsado cooking oil ma aha, waa lagu daraa cuntada flavor ay u yeeshaa. marka insha Allah waxaan soo sameysanayaa chicken soo qaleysanayaa kadibna waa isku darsan doonaa. qudaarta kalena waa sii diyaarsan doonaa insha Allah. hadda qudaarta way qaleysantay marka chickenkaan kusoo dardarayaa. hadda marka spice yarooda intin aan rabaa inaan chickenka korka kaga soo daro si aan flavor ugu yeelo. marka halkaan waxaan ku haystaa onion powder, black pepper iyo chili powder iyo chili flakes insha Allah. korkaan kaga soo daraayo chickenka si oo flavor ay u yeelato more flavor. marka hal mar aan gadinayaa dhinaca kale markay dhinaca kale ku jibiyo kaan biyo ku darsan doona insha Allah. kadibna restaurant ka karinaa 10 daqiiqo. marka suubkii waan soo biyeeyay oo chickentii marka ay soo qaleysantay suubkii waa biyeeyay. marka insha Allah waxaan ku darsanayaa soy sauce-ka iyo fish sauce-ka insha Allah. qiyaastii 2 tablespoon waa each. marka maadaama cusbaan isticmaalaynin kan kaliya flavor looga dhigayaa insha Allah. waxaan ku karinayaa brasharka 15 minutes adiga 10 to 15 minutes insha Allah. hadda marka qudaartan diyaarsan doonaa. marka hadda qudaartan jarjaranayaa waxyaalahan dhan waa wixii oo aan uga dar lahaa gadaal. tofuga iyo qudaartan basashan iyo basbaaskan oo si yar aan u jarjaray kabsar caleenta iyo sesame oil-ka waxaan kaga darsanayaa gadaal. sesame oil-ka waxaan ku darsanayaa markii aan ka qaadi rabo adiga tablespoon camal aan ku darsan doonaa. marka waxyaalahan dhan waa sii diyaarsanayaa. kan waa mint oo malagu kuma daraayo digsiga kuma dhex ridaayo. caleena ka jabsanayaa intaas camal aan kasoo kuusanayaa. waxaan ku darsanayaa weelka ku quruxsanayaa oo suubka korka laga saartaa. aadaan u jeclahay mintiga carabtiisa.
marka masha Allah shaaha lagu darsan karaa iyo cabitaanada cabitaanka xataa waa isagoo sidiisa ku dhex riday ma shiido aad u xoog badan yahay marka aad samaysanaysid cabitaanka oo aad maalintii cabdaysid biyaha oo kale biyaha cad aan ku darsadaa isaga iyo liin marka masha Allah aad u fiican yahay caafimaadkana wuu u roon yahay marka waxaan jarjaranayaa waxyaalahan aan sii diyaarsanayaa marka masha Allah qudaartiisaan usoo jarjaray kabsar caleentii iyo basbaaskan xogaaga saaid ma badani wuu kulul yahay basbaaska marka afar xabo aan jarjartay suuka aad u badan yahay marka basashiina waa tan basasha cagaareed toontaana marka kusoo insha Allah toontaana kusoo darsan doonaa haddaan kusii darsanayo halkaan si oo hal mar aan iskula daro digsiga waa ay dhamaatay noodleska hadda diyaarsanaya insha Allah hadda baastada halkana waxaan kusoo diyaarsaday waxa biyaha marka insha Allah biyaha kululaan korka uga soo dari doonaa biyaha marka ay soo karkaraan kadibna biyo baraf ah halkan yaalo biyaha barafkana dhex gelinaa si uu qabowdo dhaqso aad u jilcan tahay biyihii soo karkaray ayaan kusoo darsanaa noodleska markay si fiican ay u gaaraan biyahan waa inaan dhaqso ka qaado marka biyahan oo baraf kalan kusoo ridayaa insha Allah waan miirayaa marka biyaha qabo waxay ka hor istaagayaan inay sii karsanto baastada miiranayaa maraqeena diyaar waaye insha Allah waa kana toofigii waa soo biyo raaciyay marka insha Allah waxaan u jarjarayaa kan waa soft wuxuu kala leeyahay stages marka kan aad soft u yahay marka hal maraan sidaan dheer dhexda uga gooyo hadana waxaa sii yareynayaa si oo isla eg suubka intuu kulul yahay suubka kulul ayaan ku daraa karis badan uma baahna aad u jilcan yahay kan hadda suubkii waa kasoo daboolkan ka qaaday insha Allah chickentan kasoo bixinayaa waxaan ku daray tofuga marka waxaan u qaadanayaa 2 fargeeto si dhaadheer saasaan u soo fiiqayo kulligeed chickenta kadibna suubkan ku celinayaa aad ay u caraf badan tahay waxaan ku daray waxyaalo badan oo seasoningkeeda iyo waxyaabo dhan marka insha Allah aan kusoo dhameynayaa kadibna waxaan ku celinayaa suubka marka waxaa ii haray qudaartiina iyo chicken lagu daraya hadda waan kusoo daray wixii oo dhan chickentii iyo qudaartii marka diyaar waaye dabkiina waa ka dansan yahay hadda marka maadaama oo wax kasta aan ku daray dabkana uu ka dansan yahay oo diyaar u yahay haddaan ku darsanaa sesame oilka qiyaastii waa tablespoon
hadda waxaan tusayaa sidaan u diyaarsado suubka. insha Allah suubkan aad iyo aad u caafimaad badan yahay, waadna ka heli doontaan, especially haddii aad isku dayso inaad iska dhinto weight, aad ku caafimaad badan yahay. ما شاء الله. marka saan ku soo baxay waxaan waxa waaye waa sanjabiil. xiro sanjabiil aan kusoo daray iyo laan yaro minti ah, caraftan baan ka rabaa. insha Allah dhinacaad ka saaraysa iyo liinta yareyd. suubkan waad ka heli doontaan, I hope inaad isku daydaan ood ka faa'iidaan. masha Allah suubkeena saan ku soo baxay. kaas haddii aa weligaa cuntay full maal dhahaa magaciisa intuu ka muuqdaa korkaan kusoo qoray. marka insha Allah isku daya, waa caafimaad badan yahay, aad u fiican yahay, especially winterka oo kale aad u samaysanaa. marka waa ku mahadsantihiin daawashadiina. haddii videoga aad ka hesheen walaalaha kale la share gareeya, subscribe, like insha Allah taala. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.